gudoomiyaha gobolka Sool iyo waliba garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale Cuqaaliye waxgarad ka soo jeeda gobolka Sool ayaa maanta tuulada saaxa gabagabay ee duleedka magaalada Laascaanood ugu kala wareejiyay xoolo tiya laba beelood oo walaalahood wada deegaanka Cajiid xoolahaasi oo loo kala wareejinayay labada beelood ayaa waxa ka soo qayb galay Cuqaal waxgarad aqoon-yahan iyo waliba labadii beelood ee xoolahaasi loo kala wareejinayay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Maxamed Faarax Aadan ayaa kulankaasi ka hadlay ugu horeyn oo ka waramay marxaladii kala duwanaa oo soo maray xoolahaasi iyo waliba diyadan ay kala qaadanayaan labadan beelood sida la sheegay maanta waxaan joognaa xaflad islaaxu bayna naas oo ay ka mid tahay shirarka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u baneeyay safka hore kaga jira ummadda islaamka inay isku timaado ajiibkii iyo qabuulkiiba uu noo Ilaahay noo aqbalo aamin ducadaan raacinayaa Ilaahay waxaan u duceynayaa khayr iyo baraka Ilaahay ka jiyo wiilka walay ruxumkii Ilaahay barakeeyo agoonta madaxa loo salaaxabaliyay Ilaahay barakeeyo xoolaha Ilaahay barakeeyo aamin tolka weyne ku garab saaka halka waxaan u duco inaan ugu daro geela soo tubay waxa ugu qaalisan la kala qaata ducada ugu qaalisan maalkii adduunka ducada ka qaalisan bilaadanku hadduu ijaab iyo qowlka helana khayrku halkaan taas ku dhigay hawshaas oo in badan soo jiitamisay in maanta soo afgado aan goob joog haano aad baan u jecel waxaan aad baan u soo dhaweyn anaga iyo garaadku waxaan leeyahay hawsha maanta Ilaahay nagu simay oo qabuulka iyo ijaabka maanta joognay Ilaahay hanu aqbalo dhammaan dadka sugu yimina ducadaas ma hawsha loo eegay waxaan ku soo dhaweynaya hadda ku soo koob waxayaguna halkaasi ka hadlay labadii beelood ee xoolahaasi kala qaadanayay oo sheegay in xoolahaasi ay kala guddoon haddana geeli waa qaadana waxaanu ku qaadanay toliimo kuwa qaatay oo ay labadaa nin ee ilmaadeerta ay ka mid yihiin oo go'aamada iyo hadalladeedii naga aqbalayna waa loo ducaynaya halkaa la keenay ee tolnimada lagu keenay haddii raggii geela loo keenay ay tolnimo ku tiraabeen oo tolnimo ku qaateen oo sharaf ku qaateen waa uga mahad celinaynaa waana ugu ducaynaynaa Ilaahay geelana ha barakeeyo iyagana ha barakeeyo tolkii jirana Ilaahay ka dhigo tolka kale ee jameecada ah ee yimi ee garaadada leh ee sharafta leh ee odayaasha cuqaasha leh waxgarad kale iyagana waa u mahad celinaynaa madaxda maamulka degmada iyo gobolka bale waa u mahad celinaynaa Cuqaaliye waxgarad ka soo qayb galay kulankaasi xoolaha lagu kala wareejinayay ayaa iyaguna ka hadlay waxaanu idin faraynaa wixii aanu idin la soconin mid waa ducaynaynaa waxaanu idin leenahay samir iyo iimaan ninkiina Allah idinka siiyo xawil khayr qabana Allah idinka siiyo geelana Allah idin barakeeyo ummadda nin walba leh isugu timi shirka kan iyo haddii Ilaahay ku rooyay hawshan aynu isla ogeyn ee ka dhirgsanahay jiitankeeda iyo lugooyadeeda iyo waxyeeladeeda isugu timi mahad baan u celinaynaa kalsooni baanu siinaynaa sharaf baanu siinaynaa shirka aad soo camirteen hawsha u timaadeen waa ku mahadsantihiin waxaanu leenahay geeli waa qaadanay xigtooy waa qaadanay wixii ragga ahaa oo haddii Ilaahay tolkay u yimina waxa weeye saasaad nagu ogaanaysaan gabagabadiina garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa ku soo gabagabeeyay madashaasi duca iyo dardaaran u jeediyay ka soo qayb galayaashii kulankaasi xoolaha lagu kala wareejinayay ducadaas oo ah hawshan aynu maanta meesha isugu timi waxaan marka koowaad u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay hawshan wanaagsan ee quruxda badan ee wanaagsan ee tolka calooshooda burcada la isugu marinayo intii ka soo shaqaysay Ilaahay khayr ha siiyo aamin intii aqbashay ee go'aanka tolkooda aqbashay ee go'aanka raaskooda aqbashayna Ilaahay khayr ha siiyo aamin inamada halkan tuban ee labada ah iyo inta kale ehelkaana Ilaahay gurigooda iyo raaskooda ha barakeeyo aamin warxunkii wuxuu dhalay 3 wiil iyo 2 gabdhood Ilaahay ha barakeeyo aamin geela Ilaahay ha barakeeyo aamin Ilaahay waxaanu ka baryaynaa geeli tarma oo sanadkiisa in ka badan gaadha Ilaahay ka yeelo
qoyskana waxaanu leenahay sidaa wanaagsan aad noo sharafteen ee aad noo karaamayseen ilaahay ha idin karaameeyo ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay caloosheenna burcada isu mariyo waxaanu kaa barinay ilaahu madar khayr qabaanu kaa barinay ilaahu wax ma dooran karna adigu noo door ilaahu calooshayda burcad isu mari ilaahay intii dhimatay u naxariiso inta bugtana shaafi ilaahay waxaanu kaa barinay ummadda islaamka ah in ilaahay awoodooda iyo tabartooda ilaahay muujiyo bal ilaahu kaa barinay ilaahu waxaanu kaa barinay reerka geela qaatay iyo inta u hooyanaysa iyo inta u sii hooyanaysa ilaahu inta oo barakee ilaahu intii bixisay ilaahu xiriyooda xiriyo khayr qaba way ka badan ilaahay ugu bedel allahumma salli ala sayyidina muhammad faataha tuulada saaxa gabagaba ayaa 40 kiiloomitir u jirta magaalada Laascaanood iyadoo ka xigta dhanka waqooyi bari ee duleedka degmada Xudun ee gobolka Sool وبرخ العمر أحمد تلفزيون قرن كالسومالي لان لاصعانات